السلام عليكم. محد كتقنا أبي إسحاق السرماري فارس الإسلام، شيخ البخاري، شيخ الإسلام، المجاهد العابد. عوا وحامرت هاي قصة أحمد بن إسحاق بن الحسين أبو إسحاق السلمي البخاري المعروف بالسرماري، والسرمارية من قرى بخارى. أبي إسحاق السرماري aftarkiisu waa sidaan soo sheegnay. Soomaaliyaana waxay ka dhacdaa oo ka tirsan tahay Bukhari rahimahullah. Shaykhul Bukhari wuxuu yiraahday wuxuu ahaa macalinkiisa oo Bukhari ayaa arday ahaa. Abi Ishaq Soomaaliina macalin buu ahaa Bukhari. Wuxuu yiraahday lam yura mithlahu fil jahiliyyati wala fil islam. Isagoo kale jahiligi iyo islaamnimada geesi lamid ma soo marin. Rafa'a yawman sayfahu fasu'ila kam qatalta biha. Maalin buu saaftiisii kor u qaaday, markaas la weydiiyo waxaa lagu yiri imisaad ku dishay saaftani. Wuxuu yiraahday qataltu 1000 yaqina wa sa'aqtulu bihi 1000 in 'ishtu. حقيقة أهان يعني يقين أهان وحان هو مبارسة كدلي ما أهان يعني أنتو دقاك أسعودي ذاتك أن كدلي ماي يعني أنت مبارسة أن كدلي كليا وصير طبعا أهوبة وكن قفض وأنا كدلي دونا كن كلا حدان نوناضه. قال الذهبي إمام الذهبي مركو ترجمان وحير هدي هو شيخ الإسلام وفارس الإسلام المجاهد العابد وحاويان أبي إسحاق السرماري وشيخ الإسلام جيسك إسلامك عابدك مجاهدك أهاويان أيو يرهدي من كاسي أحمد بن إسحاق السرماري شيخ نبا بخاري ويمادي وحكويري بخاري يو منك لا يرهد أحمد بن إسحاق السرماري شيخ هذا بل كورا وحوير إمام البخاري مركه فوالذي نفسي بيده ما رأينا مثله في الإسلام. الله سبحانه وتعالى نفتي دقعنت سئي كجرتا ايان كدارتاي أحمد بن إسحاق السرماري نين لمدأه إسلام كدحديث كمانا مقل لا في الصحابة ولا من غير صحابة اي غير كذا حتى ما أنا كم مقل. إمام الذهبي مركو ترجمة يحوير هذي وأخبار هذه الغاسي تصر قلب المسلم. ninkani Abi Ishaq as-Surmari ruux kasto muslim oo maqla warkiisa iyo taariikhdiisa iyo qaabkii u dagaalamay jiray markuu maqlo wuu farxaa oo uu kala badbataa. ninkani wuxuu ahaa nin laf weyn, rag ka laf weyn way jireen laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu deeqay xoog ayu Allah ugu deeqay subhanahu wa ta'ala. غالبا انت بدن ساف مو كدغالمي جيرين wuxuu wadana jiray bud ayuu wadana jiray budkaas oo u dhigma xagga qolayska 19 kilogram bar adig ka waran qof kugu dhuftay nin xoog leh oo ilaa xoog siiyay oo hadana 19 gram kugu dhuftay qofka miyuu noolaanaya waa may. marka waxa kamid ah min aqwaashiisa ويراد قفك قائدك عيدنك هجامينها وإنه هذا أن يكون في قلب الأسد وإنه هذا جسنما يقلب أدك سيد الواحة وفي كبر النمر وإنه هذا كبر كإسلوينانته شبالك وشبالك بس كأرك آية قناية وواح كبير بدن إن أن عرنين لواحة مركز استقالان لواحة وكحق بدينها مويان لكن وحكته بدن يعني كدقال يقانا كان فضود كان جيسيسا شبالك عدي أركتي باتقانا. وفي الشجاعة كالذئب حق ديرانانت جيسي نمادنا أما ويررك حق ويررك سيدا ييدا أوكالي وحايا لييدو مركي نحكاس ويررته أو ay dhankaasi ay ka soo weerartay ay ku guulaysan wayso an kale ka soo weerar hadana ma istaagayso. wa fi thabati xaga sugnaantana
kasaqri sida dhagax oo kale inuu usug yani xagga sugnaashada oo goobta dagaalka in laga cararin la adkaysto qofka waxa weeyaan yiraahdo inuu kala mid ahaado qofka ciidanka hogaaminayo sida dhagax xamar wuxuu yiraahday imaam al-dahabi kana thiqatan zahidan mujahidan farisan mashhuran wuxuu anin zahida thiqa mujahida geesi caan yudrab bishujaacatihi al-mathal geesinimadiisa waxa loo soo qaadan jiray yani mahmah ayaa loo soo qaadan jiray waxa kaloo halkaasi aan ka sheegaynaa maalimaha kamid ayaa nin saaxiibkiisa oo dadka islaamka ee la qafaashtay ee maxaabiista ayuu soo iibsan jiray iyo fardo marka maalin kamid ay isku raaceen wadamada Room boqorada Room kamid ay aadeen halka markay tageen ninkaasi oo la oran jiray boqorka Jabaqweyhi ay wuxuu sameeyay markuu maqlay inuu soo socdo ninkan muslimka ka iibsan jiray farda qiimo leh halka laga heli jiray iyo dadka la haysto ka furan jiray ayuu wuxuu sameeyay istiqbaal uu ka hortagay uu qaabilay asaga iyo dhowr ciidankiisa maalimaha halkaas joogeen intay ku gada jireen oo ay gadanayeen ay furanayeen dadkii la haystay maxaabiistaha iyo fardihi marka maalimaha kamid ninkaasi la yiraahdo Jabaqweyhi wuxuu sameyn jiray dhoolatus ciidameed dadka muslimiintu ku absan jiray marka nin ciidankiisa kamid oo aad ay u qadariyaan aad uga dambeeyaan yani waa nin dagaalyahan waxay ku yiraahdeen ninkani ma aragtaa wuxuu u dhigmaa kun nimood yani kun nin buu u dhigmaa kun qof buu u dhigmaa xagga dagaalka abi saaq Soomaali wuxuu yiraahday wallahi ani haddaan ninkan leedibo hal saac isma xasanin hal saac ugu ma qaadanayo waan ka takhalusay ninkii madaxa ayaa maqla warkaas wuxuu yiraahday ninkan abi saaq Soomaali miyuu xanuunsan yahay miyuu sarqaansan yahay xalam yani mandoori mu cabi si kasta ha wuxuu yiraahday bari ayaan arki doonaa insha Allah sidoo iskaga dhicin lahaa ninkani maalinka dambe bari soo xawaag markii la bariyay abi saaq Soomaali wuxuu yiraahday ninkii muslimka ee fardayaasha gadanayay ganacsatada wuxuu yiraahday ninkani waan diliyay adiga horta siibax dadkaadan iyo alaabtan si qaado wadankan gaalada ka siibax si hadhow dib lagu geysan soo xawaag markuu bariyay laba farda ayaa la kala siiyay abi saaq Soomaali mid baa la siiyay ninkii gaalka ee kunkan u dhigmanaya mid baa la siiyay abi saaq Soomaali markuu wuxuu sameeyay jar buu dagay wuxuu iskaga dhigay uu u baqdan cararay wax yani ka cabsan iska dhigay uu ka dhax u baqdan cararay ciidanka ka laxbay markuu ciidanka ka laxbay buu ku soo laabtay budki uu watay buu madaxa ka ruftay ninkii kabtii ku dilay faraskana uu ka qaatay uu iska tagay ninkii boqorkii warkii ayaa gaaray konton nin oo fardoolay oo ciidankiisa kuwa ugu dagaal yaqaani ayuu ka soo dawdiray wuxuu ninkaas nooral iyo geeri mid ku keena marka abi saaq Soomaali warkii ayuu maqlay in la soo raadinayo wuxuu sameeyay meel buur oo laab oo cariir ayuu ka galay ciidankii wadadana marka waa cariir oo hal mar ciidanka ma mari karo mid ay u mareen wuxuu sameeyay mar kontonka markay dhaafeen moodeen ayuu wuxuu ka soo bilaabay kii u dambeeyay ka soo bilaabay budkii ku dhuftaa si uu waday mid uu dilay kii u horeeyay kontomaad markuu gaaray ay intuu qabtay laba dhigood isaga intuu ka jaray ayuu ku yiraahday war ninka gaalka ku soo diray soo u tag way ninkii boqorkii warkii markuu maqlay oo ciidankiisa dhan la laayay wuu yaabay 2 sano kadib ayaa waxa laabtay ninkii ganacsatada ahaa ee muslimka ahaa wadankii ee boqorkii Room buu ku laabtay markuu tagay ayuu weydiiyay wuxuu yiraahday war aawe ninkii ciidankaygi nag ka dhigay balaayada aawe wuxuu yiraahday ninkaas waa dhintay markaas ku yiraahday ninkaas kuma aha jin mu amsana bilaadan ayuu ahaa markaas wuxuu ku yiraahday waxa weeye ninkaas waxa la yiraahdaa abi isxaaq Soomaali war wuxuu dhahay wad isirtee maxaa horan ugu sheegay ninkaas asaga inuu yahay ninkaas warkii waa isoo gaaray waa nin balaaya haddaan ogaani lahaa oo id sheegi lahayd maalinka waxaan siini lahaa 500 oo farda oo ku ugu fiican oo halkaas laga heli jiray iyo 10,000 oo neef oo ari ayaan siini lahaa marka abi isxaaq Soomaali ma sha Allah noocaas ayuu ahaa geesi waxa kale la sheegaa mar ay dagaal ku jireen ciidan gaalo oo meel fadhiyay ay ka qabteen xilqo yani way hareereyeen daafaha ka qabteen ninkii u weynaa ciidanka ee gaaladana wuxuu ku jiray teendo wuxuu ku fadhiyay kursi abi isxaaq Soomaali filaar ayuu qaatay ninkii teendada ku jiray kursi ku fadhiyay ayuu ku tuuray wuxuu filaarka ku dhacay kursiga uu ku fadhiyay ninka ciidanka u weynaa
ninka ciidanku weyna wuu naxay way oo wuxuu filaarkan ka bixi gacantii uu qaaday uu laha kaga sib ayuu filaar kala qaaday uu kaga toogtay gacanta oo kaga dhuftay mid kale gaar ah soo orday wuxuu yiraahday bal ninkan madaxweynaha caawi dhuuntu ka toogtay gaaladii way jabeen sidii muslimiintu ku guuleysteen oo meesha ku furteen marka Abi Isxaaq as-Surmari nin noocaas ah oo Ilaahay xog ugu deeqay geesinimo ayuu ahaa hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muuqaalkana caaw intaas ayuu ku egyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh